Yeah. Waxaan halkan ku sameynaa qalliimo fara badan oo kala duwan. Xalayta gabadh baanu ku qallay. Aan ilmaha maxaa la yidhaahdaa ilmaha sirrisan aanu ma garanaysaa ka gaadhnay. Ilaahay waa nagu guuleeyey. Habeen hore iyagana sidoo kale. Takhasuskayga sida aan idiin sheegay waxa weeye dhakhtar dumar ku takhasusay qalliimadooda, daaweyntooda iyo dhalmo la'aanta. In yar bay furan tahay. Uu furan yahay cusbitaalku. Intaa yar oo furnaa dad badan baanu ma garanaysaa ku guuleysanay oo ku daweynay wax failure wali maana oo nagu soo noqday maana rag alxamdulillaah rabbil caalamiin. Anigu waxaan ku soo bartay dibadda Suudaan. Waxaan ka soo shaqeeyay meesha la yiraahdo Norway oo Yuruba. Waxaan kale wax ku soo bartay iyadana takhasus ku diyaariyay Norway iyo meesha loo yaqaano Uganda. Waan dhowr sanadood ka soo shaqeynay qalliimo aad u fara badan baan halkaa ku sameynay. Halkana iminkantii ay meeshu furnayd qalliimo aad u fara badan baan ku sameynay. walow ay waqtigu yaraa oo aanay ma garanaysaa ay bil iyo badhba furan tahay. Marka waxaan ku wacyigelin lahaa ama ku dhiirigelin lahaa bulshada reer Somaliland iyo maxaa la yidhaahdaa wadamada jiraanka ah Soomaaliya, Ethiopia, Djibouti meelahan ugu dhow dhan dadkii iman karaya inay ka soo faa'iideystaan cusbitaalka uu joogo Dr. Sadiq Maxamed Xasan. waana cusbitaal specialist oo aad ka helayso dhammaan servicekii looga bartay. Computerkii oo casri baan haynaa. maxaa la yidhaahdaa shaybaar casri aan haynaa. Frequency-ga dawooyinka waxaan ka keenay Europe. maxaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay emergency-gii oo iyagana aan ugu adeegno ma garanaysaa 24 saacadood furan. Jimcaha gelinka hor 12 salaada ilaa 12 mooye 10 ilaa 12 ilaa 1 mooyaane inta kale waan joogaa waa laga helayaa marnaba laga waayi maayo dhakhtarka. cid kastoo ka faa'iideysanayso specifically gobolada bariga oo dhan waxaan jeclaan lahaa inay ka soo faa'iideystaan oo ay yimaadaan dhakhtarka insha Allah ta'ala.